ra'iisul wasaaraha dalka UK Theresa May ayaa loogu baaqay inay iscasisho kadib guuldarrada ka soo gaadhay barnaamijkeeda ku saabsan ka bixitaanka xulufada Yurub. Limaan ka tirsan xisbul xaakimka Theresa May ayaa golaha baarlamaanka kaga baaqay in ra'iisul wasaare May xilka ka degto si xal looga gaaro xaajada ka bixitaanka oo muddooyinkii dambe khalkhal gelisay jadwalka siyaasadeed ee dalka UK. ra'iisul wasaare Theresa May ayaa baaqan kaga jawaabtay in aan arrinku taagnayn iyada iyo xilka ay hayso wadankana dan uusan u ahayn in carqaladaha jira lagu daro madax iscasisha balse ay muhiimad u tahay in dawada la wada doono. arrinkan ayaa ku soo aadaya xildhibaanada golaha baarlamaanku ku gacan sayreen mowqifka ra'iisul wasaaruhu ka taagan yahay marxaladda siyaasadeed guuldarrooyinka istaba joogga ah ee ra'iisul wasaare May ee kala kulantay golaha baarlamaanka ayaa keenaya in ay u jilicsanaato mooshinno lagu soo abaabulayo si xilka looga qaado. taas baana keeni karta inay iscasisho intaan xilka laga qaadin ra'iisul wasaare Theresa May. wixii ka soo kordha kala soco alool.com London